hindidu wuxuu yiri sufuufkeeda iyo masaajideeda ma ogol inaad u soo dhawaato marka maxaa la sameyn u dhawow adoo lugta ku dhawow ilaa ay safka kaga baxaan ha ka hadhin ya oo ku dilayaan miya hadda Soomaali dil looma tilmaami jireen ma iska celisaa ma hindiba hadda salaadayda ka caadsanaysa المهم انت واقفتني صلاه هادو kugu dilahayo oo kugula dagaalamay lugta kugu dhufanaya lugta kugu dhufan kugu istaagi anaga inagu dhacday faraha ka qaada masaajida qumara kale islaamka sunniyiintu joogan taga xanafiya qoraha qabsanaysa salaadina asarkana 12 saac bar tukanaysa safkana aan simayni oo sidoo qoliis saraakiisha u tukanay faraha ka qaada wala saraakiila salaatu kan kaasa kan iyo ka waxa loo dhaxaysiyo fiyoore iyo darbiyo فيورا لو دغ وحيو كان يو وحيو يا صف دنا محو نقدي بقول وبح يا افر مدحويني يعني هوش الله ما باهنا الضومد وين ku simaan في الصلاه بقركودا رئيسكودا مرؤوسكودا تابعيه مطبوعه راعيga raciyadu ilaahay wajigiisa oo usmaayeen waana safka sibican loo toosiyo المهم هذه هندي كينيا joogto ugu wadeen sunnadu way gaadhay bisaadkan jaamiya gorma casarka la tukun jiray jaamiya mooska ku yaala toonka 12 saac ee rubi marka dukaamaha la soo xirxiro oo xisaabta ay soo xiraan oo albaab oo soo casriyaan bay tukan jireen la aadaami jiray Soomaaliya yaacaysa garabratay soo qaxday Kenya wax badan baa Ilaahay kaga badbaadiyay kuwii Soomaalida sii deganaa Kenya haddii soo qaxeen lama arkeen badweyntaas ku dhimi lahaayeen lama arkeenba kuwa noodistan hadda jooga Soomaalida idinka Ilaahay idinku badbaadiyay waa loogi xaqiiqo weey xoog dhaqan xun oo inagu ku yar aafeynay waa jira hadda sheegi maayo laakiin waxaan u taray baa ka badan waxaanu yeelay taayib marka uu xilliye kala ka hadli doona waxa weeye sunnada hiilkaas iyo gibilka lagu wada iyada iska faafi doonte